dabeetana weedhii inanka yar bay ka dhigeen weedh xikmada waasaa maahmaahaan soomaalidu ku baxaan oo kale weedhaasaa waxay tahay cindamaa acadtu binaa'a alinsaan acadtu binaa'a alcaalam buu yidhi markii aan qofkii bini aadamka ha dhisay sawirkiisii ayaa adduunkiina ii dhismay waxay leeyihin ilmaha yari wuu iska yidhiye that's the real world noloshu waa taa qofka bini aadamka marka la dhiso ayay dunidu dhisantaa waa kuma Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun waxa uu ka mid yahay culimada waaweyn ee Soomaaliyeed ee sida weyn bulshada uga dhex muuqda kana caan culimada waaweyn ee Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed taariikhda Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun oo aan ku eegno barnaamijkeenan ka caanka ah iyo taariikhda haldoorka Soomaaliyeed waxaan ku soo qaadan doonaa taariikh nololeedka Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun Sheekh Mustafa oo taariikh nololeedkiisa kaga waramay markii 12aad ee uu kaga qayb galay dalka Nairobi kaasoo ay culimo badan ay ka soo qayb galeen 12 culimo oo ay ka mid ahaayeen Sheekh Cabdirashiid Cali Suufi iyo Sheekh Maxamed Idris sidoo kalena ay joogeen bulsho badan oo ka soo qayb galay isagoo sheegay inay tahay markii ugu horeysay ee uu noloshiisa ka waramo taariikh nololeedkiisa iyadoo ay marar badan ka codsadeen warbaahintu in uu taariikh nololeedkiisa uga waramo laakiinse uu isagu ka gaabsaday Sheekh Mustafa waxyaabaha uu ka sheekay waxa kamid ah in marar badan ay xirtay dawladii hore ee Soomaaliya ugu horeyn wuxuu Sheekh Mustafa si kooban uga hadlay abtirsiintiisa arrimaha qoyskiisa iyo dhalashadiisa reer wadaad ah baan ka dhashay aabahay xaaji buu ku magac dheeraa nin sheekh ah ayuu ahaa sidoo kale wuxuu intaa ku daray in awiyadiina ay ahaayeen culimo Sheekh Mustafa ayaa sheegay inuu kamid yahay dadkii ku dhashay dhulka baadiyaha ah oo geed hoosti lagu dhalay burco ayaan ku dhashay waqtigii isticmaarka ayaana dhashay oo ah intii aysan dhalin dawladii Soomaaliya intaas kadib wuxuu ka warbixiyay taariikhdiisa dhinaca waxbarashada ilaa heer jaamacadeed waxaanu yiri gobolka Togdheer ayaan ka dhigtay malcamada dugsiga hoose kadibna waxaan ka baxay maxadkii Jarmalka ee Burco ku yaalay takhasuskaygu waxa uu ahaa farsamada korontada jaamacadii Soomaaliyeed baanan ka baxay sanadkii 1980 waxbarashada dhinaca diinta waxa uu sheegay inuu ka helay culimada gudaha Soomaaliya joogtay anigoo magaalada Burco jooga ayay jabhadii soo galeen markaas ayaan wadanka ka baxay oo aan Yurub geeyay niman xanuusan oo aan walaalanahay dawladii Soomaaliyana waxay dhacday anigoo Yurub jooga ayuu yiri Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun arinta dad badan soo jeedatay oo qaybta ka ah taariikh nololeedkiisa waxa kamid ah inay ahayd xarigii marar badan ay u geystay dawladii hore ee Soomaaliya dugsiga farsamada ee Jarmalka ka dhisay magaalada Burco ayaan macallin ka noqday laakiin muddo qiyaastii sanad iyo bar ah markaan joogay kadib waxay xirtay dawladii Soomaaliya isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu intaas ku diray Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil dawladda Soomaaliyeed marraba wax badan aan ka sheego laakiin inta meelood ay wax ku xiri jirtay waan soo maray saldhig police waa laygu xiray NSS waa laygu xiray xero guulwade waa laygu xiray xero military waa laygu xiray dhabar jabin waa laygu xiray jeel waa laygu xiray mararka qaarkood waxaan xabsiga ku jiray sanado weligiina maxkamad layma soo taagin Sheekh Mustafa ayaa sheegay inuu dalka dibadiisa deganaa ilaa 1999 kadibna uu soo guuray magaalada Hargeysa uu hadda ku nool yahay kulankan uu Sheekh Mustafa taariikhdiisa ku soo bandhigay ayaa ah kii labaad ee isugu yimaadaan culimada Soomaaliya Sheekh Mustafa waxa uu muxaadarooyin heer caalami ah ku qabtay wadanka gudihiisa iyo dibadiisa gobolada Soomaaliya oo dhan muxaadarooyinkiisa waxa ka soo qayb gala malaayiin Soomaali ah oo ay dad aad u jecel yihiin inay dhageystaan muxaadarooyinka Sheekh Mustafa sidoo kale muxaadarooyinka Sheekh Mustafa waxay ku jiraan social media gaar ahaan YouTube oo muuqaalo aad u tiro badan lagu ururiyay oo ah muxaadarooyinka Sheekh Mustafa laga diyaariyay Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun taariikh nololeedkiisu waa mid ka guda ballaaran intaan muuqaalkan ku xusnay waa taariikh aad u ballaaran oo u baahan baadhis badan iyo raadin badan oo cilmi ku saleysan hasaatee muuqaalkan intaas ayaan ku soo koobinaa oo kaga warameynay taariikhda Sheekh Mustafa oo kooban barnaamijka waxaad la socodsiinaya anigoo Ridwaan ah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh is aragti dambe xiiso leh nabadgelyo